iyadoo wajigii labaad ee dhismaha binada cisbitaalka degmada Fuqufliyo oo marayo meel gabagaba ah ayaa waxa hakad ku yimi dhamaystirka dhismaha shaqada cisbitaalka cusub ee laga hirgelinayo degmada Fuqufliyo ee koonfurta gobolka Sanaag kulanay wadajir u qabteen mas'uuliyiinta degmada Fuqufliyo iyo injineerada gacanta ku haya fulinta hawsha dhismaha cisbitaalka ayay ku cadeeyeen halka ay marayso hawsha dhismaha cisbitaalka iyagoo xusay in gabi ahaanba istaagtay shaqadii ka socotay cisbitaalkaasi sababo dhaqaale awgeed waxayna baaq dheer u direen cid kasto gacan ka geysan karta qabiyatirka dhismaha cisbitaalkan maanta fayskii koowaad ayaa inoo soo gabagabeeyay oo inoo ku xidhan yahay shubkii oo aad aragtaan shaqaalihiina shaqeynayo oo shubkii la shubayo dhaqaalahan oo ay bixisay dal joogta iyo qurba joogtu aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa inta dhiman oo hadda ay lacagtiisa halka ku godayna waxaan leenahay war walaalihiina kale ee la baxay hantidaas ku dayda waxaanu leenahay shahariyadu halkaas wax marinaysaa waxay noo dhistay secretary schoolkii waxay noo dhistay dhakhtarkii markii aragtay caafimaad darrada waxay marinayaan halka waxaan qayladhaan u dirayaa qof kasta oo deegaanka u dhashay hadduu qurba jiray oo hore uga qayb qaatay iyo ka aan ka qayb qaadan iyo kii dalka joogay ka qayb qaatay iyo kaan ka qayb qaadan iyo kii maamul u jiray waad aragtaan hospitaalkii maanta meesha uu marayo wax yar baa ka hadhay waxaan leeyahay war hala dhamaystiro hospitaalkan muddo dheer baan u qaylinaynay ilaahay waa nagu guuleysiyay guushii hore wataa inta maqan waxaan leeyahay soo dadaala inta bixisana jisaka la khayr dawladahan ballanka qaada iyo iloobin waxaan ka rabaa inaad maxay waxa ballan qaadeen dhamaystirtaan wasaaradda caafimaadka noqoto qolada amniga ha noqoto gaar ahaan waxaan la hadlayaa wasiirka deegaanka u dhashay ee ballanka qaaday waqta anagu tabartayadii intaasay noqotay maanta wajigii koowaad baan xidhaynaa ninkii jiray wuxuu yiri howlka badaala wali waa hogadii waa inta aynu ogala soo dhawaanaa mashruuca aynu bilownay dhab ahaantii marka la eego waqtigan hadda lagu jiro waxaan isleenahay waa barnaamij mudan in la dedejiyo 100% hadday tahay dadkii deegaanka u dhashay ee gudaha joogay iyo hadday tahay dadka qurba joogtaba ah runtii waan garanaynaa dadka de contribution ka qayb qaatay qurbaha ku nooli dawaadad loo wada garanayo intaan ka qayb qaadana waa la garanayaa waxa la rabaa inaad hawsha eedeedu soo bandhigi doonto inaad sida ugu fudud uguna macquulsan aad hawsha u soo dhaweysaan annaguna dhinacayaga dawaadna aragtaan oo qoladeedii dalka joogtay waanu isku duubanahay hawsha inaanu dhamaystirno baynu isku ognahay si kastaba ha ahaatee dhismaha cisbitaalka degmada Fuqufliyo ayaa waxa iskoodu abaabulay bulshada deegaankaasi waxaana meesha ka baxay ballanqaad ay hore u ballan qaaday wasaaradda caafimaadka Soomaaliland oo ah inay mashruuca hirgelinta dhismaha cisbitaalkaasi ka qayb qaadan doonto Yusuf Cabdi Xasan Cabdi telefishinka caalamiga Universal magaalada Ceerigaabo.